السلام عليكم أصحاب سقالية أدفع إني سلامنا دمان تيبا دمان سوحا نوم عسلين صاحبكن عبد الشكور برنامج كان قيب قادنايا barnaamijyaan ugu talagalnay bisha Ramadaan insha Allah inta ka dhimashay 10 cisho inoo dhiman inaanu halkan ku wada sheekaysano waqti ku wada qaadano saaxiibkan Cabdi Shakuurna wuxuu ilaahay saaxiibkan Cabdi Shakuur barnaamijkan qeyb qaadanaya barnaamijyaan ugu talagalnay bisha Ramadaan insha Allah inta ka dhimashay 10 cisho inoo dhiman inaanu halkan ku wada sheekaysano waqti ku wada qaadano saaxiibkan Cabdi Shakuurna wuxuu ilaahay arrimo fara badan oo ku saabsan arrimaha Yurub iyo xaaladda qurbaha ayaa ka waraysan doona sidoo kale waxaan eegaynaa dhammaan jawiga guud ee Ramadaanka soonka iyo xawaasha sidoo kale waxaan naga xasuusinaynaa jawiga maanta aad qurux badan yahay saadaradeed aanu jeclaysanay inaanu saaxiibada halkan kula baashaalo waqti kula qaadano maadaama maalin qorraxeed tahay afradii xoogaa ka dhiman tahay ilaa imsa ka dhiman هذه 3 ساعات waxay 3 saacadood todobadii 2 saac iyo xaga ka dhiman todobadii hadana qorraxda soo jeedo ma sha Allah adigu wadankii casr bay u tahay casr uma ahayn kuwa afreen wadankii laakiin anaga xoogaa baa waqti noo haray saweeye imika waxa barnaamijka inoo daadihin doona qaybaha hore saaxiibkeen Fadxi oo arrimahaasi aad ugu doon doono Cabdi Shakuur kadibna qaybaha dambe ayaan idin falanqayn doonaa inta show yaa soo dhawaada السلام عليكم عليكم السلام أدنى كوسا سلامتك وسلامته هو شيء كميدا وان قرقت قيبت إسلام كميدا واد ما سنتها waxaa kugu soo dhaweynaya barnaamijkan qiimaha iyo qadarinta badan aad iyo aad bad ma sintihiin bulshooyinka nagu xidhan waxaan ninku kula hadlaya dhigayso waxaan ku weydiinaynaa ka waran macluumaadka Yurubka iyo afkaarta u dhaxaysa Afrika waddanka iyo والله ده يوروب وين ودجونا لكن فكر أهم تيدا سيدان كقبو ما أنت هدي عن وقت شهره أنا والله يوروب برضو أركابه ده إن يعني وضع كان يوروب اللي هذا أيضا يرت أي مادين كليات وقبل ما فكر قولي أي مادين لكن أي مادين كليات إنه وحصو صار يرقى على السمايس يجيب بدل كقولي مادين يوروب هذا أنا صار نقطة ده يوروب برضو كإلهي النمعي فوق قدر كلسين هاي iska ma sha Allah daad wadankiina waan wada ognahay oo yani Afrika marka la eego waa qaarad dib u dambaysa dibgeeda marka Afrika la dhaho dadku waxay ka aaminsan yihiin adduunka saddexaad ugu yeeraa kawar fikirka أنا ما أمسني أدونك سبحان الله أدونك كودنا ما هو النهاية أنا أمسني لكن كان يقبل وأطهي رجعني مو horta ma yaa wixii jira in la sheego way fiican tahay ما يقول لنا لكن وين قد اسمه قروح بديهين وين قال عقد بديهين لكن أنا كمان خنتي بدنا سوتها دائما ما لها ذهب ما لها اللي يحلم ما لها مريديال ما لها يعني ما لها وحوينا قال حتى بنانا ما لها nidaam iyo maamul iyo isma qalbay wax ku wada inta waa kugu raacsanahay laakiin marka laga hadlo qaybta maartay dadnimada iyo ixtiraamka iyo magaranaysa soo dhaweynta aad bay iyadana ugu dheerayaan aad oo weyn waxa kaliya ee wadan uu ku dhismaa horumar uu ku gaadhaa waa nidaamka iyo sharciga oo loo hoggaansanaado ما قيبت الشرع النمو كبر عشان هاي الشرع النمو اللي قفل عين صوت مسق ما صغار إنك إن الرجال منك حلقة بتاد أنا قاعد من العين اللي يجي بيلا ركض يعني الجيم ويعني عيد وحسي ركض إنه مبدر أنا قاعد أحكي لك كذا إن قلنا السياسة ويربول شيء والله حاجه سياسه walaalkay Cabdi Shakuur horta su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo xaasan adiga ahaan waxaad tidhi waddanka Jarmalka waxaad joogtay waddanka Sweden horta waxaan ku leenahay wax walba sidii yihiin waa la socotaa Sweden iyo Jarmalka waxaa la leeyahay saacad ku baran sanadka muddo sidaas waxyaabaha u dhaxeeya Sweden iyo horta wallahi dee inkastoon wax odhan karin maanta Jarmalka waxaasan ka aqaanaa oo yani waxaan joogaaba ay iska tirayar tahay oon yani aad u sii kala fahmin oo sii baranin aan maanta luuqadiisa ku hadli karin laakiin Sweden wax badan baan ka aqaanaa maadaama waqti badan joogay hadanta Sweden ka horeeyo oo maanta ilaahdo Sweden jawigeega bal sawir yani Sweden horta magaalooyinka waaweyn marka saddex magaalo laga reebo Sweden inteeda kale kama sheekeyn karo Stockholm Göteborg iyo Malmö يعني قفك الصومالي إيه سد حدا مقالة ما أنت تشوفاي وقف لايك إنه الصومالي تشوف وضن كي أوكي هكذا ما يرمعنا وحدان هالك هو معناه يعني وضن كي هرت الصومالي يكون بديه مركز إيجو دلك سويدن
soomaalida badnaanteeda sababta in qofku dareemo inuu wadankii dhex joogo soomaalida aad ugu badan soomaalida aad ugu badan saadii uu dareemaya yani ajnabigu ma yada ajnabi kala way jiraan laakiin soomaalidu gabigu xataa way soo urursadaan maanta hadii la yiraahdo xaafad baa halka degan Soomaaliya ninka cusub wuxuu doonaya inuu xaafada dego tusaale ahaan ringidii xaafad leeyahay inaan maqashay mooyaane waxa ku taala Stockholm kaliya ka waxa iskale Soomaali baa degan xaafada dhan Soomaali baa degan Soomaalidaasi yani waxay ka qayb galeen maamulka dawladda waxyaabaha shay wuxuu hoggaansamayaan xaafadaasi يعني وحافظ كم إذا سيدا يعني محن كلها مجال ما كان حافظ الله كلا قيبيه وحافظ وقالوا صومالي ده لقطة يعني الكلمة دي حافظ دي سما سيدا من السوتوكل حافظ دي صومالي ده برت عادي عاد ما أصلاً عبد الشكور كل طبعا واحد كشوا هذا وقت الصوم كشوا قليل كل واحد مرة يعني حاجة كوير كل دوين وقت يتكسر في سويد ريبيو وقت اللي تاجين كشوا مسافرين تايم أهان والله ما يقول دوين طبعا يعني تايم أهان وحاجة يربط كلا هرينا يعني حاجة تايم كا يعني وضع كمان ما أقام السيد ده وكل هريان يسقط علي ساعات نقف بلادنا يسقط توصل دورو كي يلامو مركا يعني حجاس وحال أفرا أو أفرق وكبيرين هاي ساعات وحي قبل أول تاسقالك إلا طبعا كي جاء هل كان واحد مقلين يسقال قبل أول لكن وجود ما يسقال كي بركة أنا أفرق كدم بيه هذا سقال كي بركة إلا سجد بركة يستيد هذا أفرتن إسكندر دول مركا حاجة وقت جاء يعني يسوي لي يدو دوي وحقابة إني قدم بس مركا أفر لا so time أنت هسيكير كل دوي أوكي واحد يسكت ولا الكي هو أحد هذا نايس هذا سكران أكون لو إحنا قدر صح horta dadkeena daawanaya waxaan u sheegaynaa war dhul green oo cagaaran baan joognaa nimca fadhida nimco haddana nimcada ma hayno ma garanayna dadka waddanka jooga nimcadaas u muuqataa annaga caleen bay noola muuqataa meeni horta aan kaaga galay waddankani waa waddan inan yari ku tabcay wey inan yaroo maskax markii hore lagu soo koriyey kii isaga dhalay kii sii dhalay macnaha soo ababiyey ayaa waqti garanaysa oo baro wuxuu yahay dhulkiisa ayaa macnaha ku tabcay oo garanaysa laakiin inagu ma naqaano dhulku muxuu yahay laakiin waa naqaanaa waynan doonaa adigu waa garanaysaa anigu waa garanaysaa anigu waa garanaya laakiin waana sameynaa يعني waxa la isku aaminaynin ama aan la isku awood la isku siinaynin qofka bini'aadamka maskaxdiisa waxa ku jira iyo fikirkiisa in laga dhageystaa sin jirin xagga Soomaaliya mid kale aan chance siina dadka iyaga laftooda daawanaya si ay fikradooda uga soo dhiibtaan arrimaha Yurub haddii aad fikrad haysid qaybta commentiga fadlan noogu reeb waa tahay waa labada YouTube fiidiyogana waxa aad qaynaad ka daawanaysaa sidoo kale Zayn YouTube Zayn waa ka daawanaysaan YouTube labada wada shaqeynayaan halkaasaan kala wada soconaynaa arrimo badan oo muhiim ah maalin kasta oo soo gudbinaynaa mawduuca inaan yara bedelo bal arrimo aan xoogaa maxaa wax fan oo cusub haysan badina bal midoo nala wada wallahi niyo horta inkastay Ramadaan ku cusub hada diraysi inkastay Ramadaan tahay iyo horta Ramadaanada waxa la yiri qaybta fanka la soo war ma fanka markuu music ahaan dejina dhageyso macnaha fanka horta asliin waxa ku wanaagsan markay dukan عادي حاجه خير كان اما انه موسيقى صارنا مeel inaas ka dhigtaa wanaagsan حاجه خير صح laakiin hal mid baan ku xiisanaya intadeedu waxay tahay horta dambi waxa ah heesta markay music leedahay laakiin suugaanta dambi ma aha gabayada iyo waxaad bal maanta nala wadaagtaa waa tartamaynaa saddex tartan baa ku jirta saddexdeena kii guuleysta barnaamijkeena ku soo xirayna gabay hees iyo sheeko saddexda qodob والله سو كلا عدينيا هل شيكو يعني هل قبي يو هل شيء أوكلا صدق هذا شيء منك صدق دي سفيعنا هذام أيه قوليستي مركا صدق مركا هذا هل هسمع ولا بلا قبي ما ولا بلا بينا كتنا هسمع كل سيننا كتنا شيء صدق كلا صار هل منها لوجو ما صدق هذا هو القاعدة صدق هل من ولا هو كلا قوليسنا يا مركي وأنا صدق عطيان أنا صدق كان أنا وين وقفتوا شيكيا قبيا wax kale ah saddexdaaba sheegaba ka wada okay saddexdaaba sheega laakiin saddexda ugu fiicnaada oo weyn hadan heesta kaga guuleysay xalaa sheekada iga guuleystay sama horta nuru sheega ma xuma yaani gabal iga fiican waxle iskuulka soo ma dhigan jirin waa rahay gabal waa iga fiican ku horeeyay laakiin waxaan isku dayayaa insha Allah ka badanaynaay laakiin noo waa boytiga tartanka gal horta laba yaro erayu isku geeyay tartanka keeban bilowna marka hore kala cadayna heesta mise gabayga mise sheekada والله بالله يرتع
dadkayna daawanaya kulleyna waxba sheegi ina waxba soo eeg waxun ka bilowniyo waay meel un ka soo qabo. insha Allah balbalaana sidii sheekeyrna bilaab sheeka ku bilaabana hadda ka hor horta waxa jirtay wiiliga gabadh isjecel wiiliga gabadh isjecel sheekada korka wala bixis waay wiiliga gabadh way isjeclaayeen way isjeclaayeen gaaraysa ilaa 5 sano ay isjeclaayeen ma sha Allah marka waxa sheekadu ay macnaha ku macaaneen karaan qaabka ay ku bilaabto wiil iyo gabadhu waxa la iska bartay qaybta aaladda internet social media ay saadeen aduu sheeko 2 sano iyaduna ayna arkin isaguna arkin sheekadu waa bilowga labadii sano oo horeeyay ismaaciil Allahumma barik aduu sanadkii saddexaad bilowgiisii baa wiilkii safar soo galay magaaladii gabadha Badreed wala marka wiilku macnaha sheekadu sheeko ka dhacday ma ahayn Afrika sheeko Yurub ka dhacday qurbanaas qurbanaas marka wiilku wuxuu damcay inuu iska daayo meeshii isagu taganaa oo gabadha meesha ay degantahay agteeda inuu shaqo ka raadsayo wala uuna qabin laakiin haddana dee jacaylka ka soo ag dhawaado yani intaa safarka dheer soo galay